sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo lagu kalsoonaan karo markii ugu horreysay wadamada reer galbeedka ee taageera Soomaaliya ayaa wadahadal la furay kooxda Al-Shabaab. kooxdan oo waqti dheer dagaal kala soo horjeeday dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera ayaan lagana adkaanin. taas beddelkeeda waxaa dagaalka lagula jiro kooxdan uu galaaftay kumanaan Soomaali ah oo badankood ku dhintay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. wadahadalladan oo ay reer galbeedku badi isku aragti ka yihiin waxaa loo wakiishay hal dowlad oo Yurub ah oo sidaan oo kale sabab u ahayd in kooxdii Taliban wadahadal lala galo kadibna xafiis laga siiyo magaalada Dooxa. sidaan xogta ku helnay 3 qodob ayaa loo diray kooxda Al-Shabaab inay ogolaadaan, kadibna waxaa bilaabanaya wadahadalla toos ah oo ay qayb kaga noqonayaan geediga dowladeed ee Soomaaliya ayna uga badbaadayaan beegsiga gaarka ah ee lagu hayo. 3 qodob ayaa kala ah: 1. inay Al-Shabaab ogolaadaan sharciga caalamiga ee adduunka. kooxdan ma aqoonsana hay'adaha caalamiga ah, xeerarka la isku raacsan yahay iyo jihaynta dowladaha waaweyn. 2. inay ka nabad galaan oo ay xurmeeyaan dowladaha deriska. kooxda Al-Shabaab waxay dhowr jeer weerar ka fulisay dalalka deriska la ah Soomaaliya. fikradoodu ma lahan xuduud, waxayna ku taamayaan inay dhisaan nidaam xukuma dhul ballaaran oo Soomaaliya dhaafsan. inay xoog hirgeliyaan ayaana u ah ajenda fog. 3. inay ka baxaan ururka Al-Qaacida. waxay kooxda Al-Shabaab kala hor sheegtay inay ka tirsan tahay ururweynaha Al-Qaacida oo dagaal xooggan uu kula jira adduunku. dad badan oo ajnabi ah ayaa u dagaalama Al-Shabaab, kuwaas oo sidoo kale u soo dagaalamay ururka Al-Qaacida. ilaha aan xogta ka helnay waxa ay sheegeen in 3daas qodob loo gudbiyay Al-Shabaab oo laga sugayay jawaab. ila wareedyadu ma xaqiijin karin inay kooxdu soo jawaabtay in kale, laakiin cilaaqaadka iyo wadahadalladu waa socdeen muddooyinkan. haddii ay kooxda Al-Shabaab 3daasi qodob aqbasho, waxaa loola macaamili doonaa sidii loola macaamilay Taliban, waxaana laga saari doonaa liiska argagixisada iyadoo loo arki doono koox diimeed xukun doon ah oo lala gorgortami karo. waxaana kale oo macquul ah in xafiis laga siiyo magaalada Dooxa ee dalka Qatar ay leeyihiin ila wareedyada xogta na siiyey. Al-Shabaab waa kooxda ugu mayalka adag ee ka dagaalanta bariga iyo bartamaha Afrika. in heshiis lala galo oo ay sidaan si dhaanto xukunka ku doonaan waxay badbaado nafeed u tahay kumanaan Soomaali ah oo sanad walba ku dhimata dagaalka ay kooxdu ku rabtay xukunka. waa markii koowaad oo ay miradhal noqon karaan wadahadalla kooxdan laga doonay. marka la eego ragga gacanta kula jira mashruuca, waxaa macquul ah isfaham iyo dabacsanaan, ayuu yidhi qof ka mid ah dadkaan xogta ka helnay oo rajo ka muujiyey wadahadallada hoose u socda kooxda Al-Shabaab iyo waddamada reer galbeedka. maxay kula tahay adiga?